waa tixanaha lixaad maanta halkan ayuu inooga bilaaban doonaa. Waxaa soo saaray tarjumay idinlana socodsiinaya anigoo ah Cabduqaadir Maxamed. Gurwadaag u dhaxeeya wiil iyo gabar wada dhashay ayaa dhacay. waxa uu noqday wiilkii walaashiisii jeclaaday dabeetana guursaday. gurwadaaga wiil iyo gabadh wada dhashay waxa ay markii dambe dhaqan u noqotay Tolmaaniyiinta Masar. taariikhdu markay ahayd 193 ka hor dhalashada Ciise, boqoradii Suuriya ayaa u soo hayaantay Alexandria. si ay u guursato mid ka mid ah wiilasha Ptolemy. magaceeduna waxaa loogu yeedhi jiray Cleopatra. iyo markuu geeriyooday saygeedii sanad taariikheedkii 180 ka hor dhalashada Ciise, Cleopatra ayaa noqotay boqoradii ugu horeysay ee hoggaanka u qabatay Ptolemy-ga Masar. ku dhawaad jacaylka shacbiyadeed awgii boqorad waliba ee iyada ka dambeyn doonta ayaa loo rajeeyay in iyada loogu magac daro. Tolmaaniyiintii ayaa Masar ugu dhaqmay sida dhaxal hantiyadeed ee ay milkiyeen. waxa ay ka faa'iideysteen kheyraadka dalka, waxa ayna maalgeliyeen dheeraadka boqortooyada ee habdhiska dhaqaale. waxa ay maamuleen dhammaan ganacsiyada iyo wax soo saarka boqortooyada. dhaqaalihii dhanba waxaa la hoosgeeyay awoodda dawladda. waxay ahayd tijaabo hore ee loo qaaday isxilqaanka kayd dhaqaale oo ay dawladdu ku xoojiso awooddeeda. si loo buuxiyo qasnadaha hantida ee qaranka. ideelkoodba waxa ay u badnaayeen taajiriin aanu la qiyaasi karin cadadka hantidooda. dadkii Masaarida ahaa ayaa si naxariis la'aan ah looga faa'iiday ciidooda. waa haddii aadan ka faa'iidaysan ciidaada waa in laga faa'iido. tilmaamta odhaahdayada waxa ay muujinaysaa in Soomaaliyada aysan u bislayn ka faa'iidaysiga ciida. weli waxaa sii socda taariikhda Ptolemy-ga Masar. Masriyiinta waxa ay noqdeen dhibanayaal la kulma ciqaab daran ee sharci darro ah. dadkii u dhashay Masar waxa ay ahaayeen kuwa markoodii hore ku caasiyoobay hogaamiyayaashoodii, kuwaas oo iyagu talada u arrimin jiray. waana nooc waliba ee umadeed sida ay u dambeyn kari karto haddaanu sharcigu iyo cadaaladdu la saraysiinin.
laakiin waxaa soo ifbaxay awoodo yar kuwaasi oo aanan u shaabihin kuwo kaga guulaysta Ptolemy-ga inay kala wareegaan Masar. kursigii boqortooyada ayaa haysan jiray Ptolemy-ga muddo 300 oo sanadood iyada oo ay Masriyiintu ciqaab iyo dhibaato la kulmayeen. Ptolemy-ga Masar oo ah boqor ka mid ah boqortooyadaha Hellenistic waa midka kaliya ee ku raagay Masar muddo la eg 300 oo sanadood. boqortooyadihii Hellenistic oo dhowr qaybood ka koobnaa ayaa yigleelay dawlado iyo boqortooyado kale ee ay ka mid ahayd boqortooyada Ptolemy ee Masar. xarunta taliska guudna waxaa looga aramin jiray Gariiga. waa bariga fog, magaaladuna waa Syracuse. Syracuse waa magaalada qura ee gumaystaha hore ee Gariiga isha u ahayd marinka Sicilia. waxa ay ahayd xarunta dhexe ee dhaqanka galbeedka Mediterranean-ka. Romaanku waxa uu go'doomiyay Syracuse inta lagu guda jiray dagaalkii labaad ee Punic. magaalada ayaa gacanta lagu dhigay sanad taariikheedkii 212 ka hor dhalashada Ciise. tixanaha lixaad maanta halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa inta aynu kaga kulmi doonno tixanaha xiga ee toddobaad. waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan. haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad ina soo booqato rukumo channel-kanaga lana wadaag saaxiibadaada si ay uga mid noqdaan daawadayaashannada mahadsanideen.